غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن في زيارة مهمة متوجها إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. dagaalka biltirsada ee ka socda Itoobiya una dhaxeeya ciidamada dalkaas iyo jamhadda TPLF ayaa waji kala yeeshay. dagaalku waxa uu ka gudbay xuduudaha dalkaas wuxuuna ku faafay dalalka dariska iyo kuwa daneeya arrimaha Itoobiya. dagaalka faafay ma aha kii xabadda iyo baaruudda ee qoriga waa mid diblomaasiyadeed kaasoo ka dhexoogma wadamo siyaabo kala duwan isu xulafaystay kuwa danahooda dagaalka ka arka kuwa cadaawad kala dhaxayso Ethiopia iyo kuwa TPLF garabka saaraya iyo qaar kale oo raba in ay wiiqanto awoodda siyaasadeed midda ciidan iyo dhaqaale ee Ethiopia. maanta waxaynu warbixinta ku eegaynaa saameynta ka dhalatay socdaalkii Cabdifataax Asiisi madaxweynaha masaaridu ku yimid dalka koonfurta Suudaan maalinimadii 29 bishii 11 ee sanadkan 2020. South Sudan waa dalkii ugu dambeeyay ee xorriyad iyo madax bannaani gaar ah helay gabi ahaanba Afrika. waa dal taariikhdiisu salka ku hayso colaado dagaallo iyo jamhado hubaysan waana faqri ay muddo dheer joogitaan ku lahaayeen Itoobiyaanku qaab sirdoon iyo ciidanba. dalkan dawladda ah waxa ka yar 10 sano ayaa wajahay colaadii ugu adkayd taasoo ay ku barakaceen kala bar dadkii dalkaas dhimasho aan boqolaal kun ka yarayna ay ka dhalatay. koonfurta Suudaan 3 sano iyo bar kadib xorriyadoodii 2015 waxaa khilaaf uu ka dhex dhashay madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii kaasoo markii dambe isku bedelay colaado isir iyo qabiil ku salaysan galaaftay nolosha boqolaal kun oo dadka waddankaasi ah. waxaa la rumaysan yahay in ishardiga labada siyaasi ay qayb ka ahaayeen dowladaha darisku ay ugu horeysay Itoobiya sida uu shalayba qilay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo hore gobolkan uga soo shaqeeyay isagoo hogaaminayay in ka badan 10 bilyan oo ciidan Itoobiyaan ah. xiisadaha iyo dagaaladaas waxaa si toos ah ugu lug lahaa Itoobiya oo taageero muuqata siinaya jamhadda uu hogaaminayay ku-xigeenka Salva Kiir iyagoo aad u daneynaya inay awoodda ka qaadaan Salva Kiir balse taageero iyo garab istaag uu ka helay Uganda iyo Suudaanta Carbeed Salva Kiir oo Masarna ay taageerayso ayaa keentay in awoodda laga qaadin ee uu baaqi maanta ku ahaado Juba. Masar oo dagaalka saaxiib kula noqotay Salva Kiir ayaa markan u aragtay saaxiib weyn oo ay gobolka ku leedahay kaasoo culayska ku siyaadin kara Addis Ababa si ay Masar laba mid u hesho in ay Itoobiya ka noqoto qodobada heshiiska ay ka baxday markii ay biyo xireenka Abay bilowday ama in South Sudan noqoto hoyga jamhado hubaysan oo hordhac ay u tahay waqtigan TPLF taasoo dagaalka ka wadi doonta dalka Itoobiya si awoodda ciidan iyo tan dhaqaale ee Addis Ababa hoos ugu dhacdo kadibna Addis Ababa lagu khasbo inay Masar la xaajooto si dagaalka TPLF loo joojiyo. damaca masaaridu ma aha mid sahlan oo si fudud ku dhammaan kara waana halis weyn oo saameyn ku yeelan doonta gabi ahaanba qaaradda Afrika. waxaana saameynta colaadaha cusub ee la hurinayaa ay dib u saameyn weyn ugu yeelan doonaan wadamada gobolka qaarkood. waa laba qorshe oo haddii ay u hirgalaan Cabdifataax Asiisi iyo booqashadiisii ugu dambeysay ee Suudaanta Koonfureed ka dhigi karta guul siyaasi ah oo ula soo hoyday shacabka aan taageerada u haynin ee Qaahira. Itoobiya oo heshay war sirdoon sida lagu faafiyay bogagga wararka ee dalkaas ayaa ogaatay in qayb ka mid ah madaxda TPLF ay booqdeen koonfurta Suudaan intii uu socday dagaalka ama inay hadda wali ku sugan yihiin magaalada Juba. inkastoo aan laga sugaynin TPLF rumaynta warkan haddana way beeniyeen. TPLF xilligan kuma dhacdo inay qirito inay dariska u raadsatay gargaar iyo maciin iyo garab gaashaan u noqda sababtuna waa iyaga awowgood afawarka u arka cadow weyn oo Abiy garab u noqday. waxay xoogga saarayaan sida ay isaga jeedin lahaayeen wax kasta oo ku salaysan in lala xiriiriyo in dibadda laga riixayo halgankooda. Ethiopia xogtaas iyo ajandaha booqashada Siisi marka ay heshay waxay qaaday tallaabooyin ay ku muujinayso caradeeda siyaasadeed. Addis Ababa waxay dalkeeda ka saartay diblomaasiyiinta South Sudan ee dalkaasi ku sugnaa. waraaqaha dalka baxa waxaa loogu sii dhiibay askar taas oo muujinaysa inay Addis Ababa u dirtay
sood suudaan fariin colaadeed inkastoo warkan ay diidan tahay xukuumadda abiy axmed haddana warbaahinta juba way xaqiijisay ila diblomaasiyadeed oo reer galbeedkahina way taageereen. 2 abiy axmedka addis ababa waxa uu shalay sheegay in kuwii dhibta ka geystay gobolka ay ahaayeen TPLF si gaara wuxuu u xusay koonfurta suudaan wuxuuna dareensiiyey inaysan soo dhowaysan kuwii kala qaybiyey ee dalkooda labada ka dhigay. qodobka 3 Ethiopia waxay dhambaal siyaasadeed la wadaagtay IGAD iyo Midowga Afrika iyadoo kaga warbixisay habdhaqanka siyaasadeed ee koonfurta suudaan. shir goboleedka IGAD ee soo wajahana waa caqabad cusub oo harayn doonta kana imaanaysa xagga Eritrea oo garab iyo awadaay xilligan la ah Addis Ababa haddiiba COVID-19 awgiis aan loo baajin shirka urur goboleedka IGAD. South Sudan ayaa u muuqata inay ku dhacday dabin ay adag tahay inay ka soo kabato waa haddii aysan degdeg raaligelin uga bixin maadaama Addis Ababa ay tahay xarunta IGAD oo dalalka IGAD ay go'doon gelin doonaan dalkan curdanka ee faqriga iyo dagaalada lugaha kula jira. Ethiopia oo siyaasad ahaan guun ka ah arrimahan waxay culeyskeeda u gudbin kartaa golaha amniga ee Midowga Afrika oo saameyn ba'an ay ku yeelan doonto natiijada ka imaanaysa Suudaanta Koonfureed. Masar oo u muuqata inay ku fashilantay fagaarayaasha caalamiga ee doodaha biyo-xireenka Ethiopia sidoo kalena awoodi weydeen inay dagaal toos ah la gasho Ethiopia ayaa markan faa'iido iyo ribix siyaasadeed u aragta inay xiriir la samaysato dalka Suudaan iyo inay taageerto TPLF siisana magangeliyo iyo deganaansho siyaasadeed si ay macaash uga hesho balse wax kasta waxa ay ku xirnaan doonaan jawaabta Addis Ababa iyo Ethiopia ka timaada ee la xiriira sida loo wajaho dagaalka labaad ee TPLF wajigiisa. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن في زيارة مهمة متوجها إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. dagaalka biltirsaday ee ka socda Ethiopia una dhaxeeya ciidamada dalkaas iyo jamhadda TPLF ayaa waji kala yeeshay. dagaalku waxa uu ka gudbay xuduudaha dalkaas wuxuuna ku faafay dalalka dariska iyo kuwa daneeya arrimaha Ethiopia. dagaalka faafay ma aha kii xabadda iyo baaruudda ee qoriga waa mid diblomaasiyadeed kaasoo ka dhexoogmay wadamo siyaabo kala duwan isu xulafaystay kuwa danahooda dagaalka ka arka kuwa cadaawad kala dhaxayso Ethiopia iyo kuwa TPLF garabka saaraya iyo qaar kale oo raba in ay wiiqanto awoodda siyaasadeed midda ciidan iyo dhaqaale ee Ethiopia. maanta waxaynu warbixinta ku eegaynaa saameynta ka dhalatay socdaalkii Cabdifataax Asiisi madaxweynaha Masaaridu ku yimid dalka koonfurta Suudaan maalinimadii 29 bishii 11 ee sanadkan 2020. South Sudan waa dalkii ugu dambeeyay ee xorriyad iyo madax bannaani gaar ah helay gebi ahaanba Afrika. waa dal taariikhdiisu salka ku hayso colaado dagaallo iyo jamhado hubaysan waana faqri ay muddo dheer joogitaan ku lahaayeen Etoobiyaanku qaab sirdoon iyo ciidanba. dalkan dawladda ah waxa ka yar 10 sano ayaa wajahay colaadii ugu adkayd taasoo ay ku barakaceen kala bar dadkii dalkaas dhimasho aan 100,000 kun ka yarayna ay ka dhalatay. koonfurta Suudaan 3 sano iyo bar kadib xorriyadoodii 2015 waxaa khilaaf uu ka dhex dhashay madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii kaasoo markii dambe isku bedelay colaado isir iyo qabiil ku salaysan galaaftay nolosha 100,000 kun oo dadka waddankaasi ah. waxaa la rumaysan yahay in ishardiga labada siyaasi ay qayb ka ahaayeen dowladaha darisku ay ugu horeysay Ethiopia sida uu shalayba qilay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo hore gobolkan uga soo shaqeeyay isagoo hogaaminayay in ka badan 10 bilyan oo ciidan Ethiopian ah. xiisadaha iyo dagaaladaas waxaa si toos ah ugu lug lahaa Ethiopia oo taageero muuqata siinaya jamhaddu uu hogaaminayay ku-xigeenka Salva Kiir iyagoo aad u daneynaya inay awoodda ka qaadaan Salva Kiir balse taageero iyo garab istaag uu ka helay Uganda iyo Suudaanta Carbeed Salva Kiir oo Masarna ay taageerayso ayaa keentay in awoodda laga qaadin ee uu baaqi maanta ku ahaado Juba. Masar oo dagaalka saaxiib kula noqotay Salva Kiir
ayaa markan u aragta saaxiib weyn oo ay gobolka ku leedahay kaasoo culayska ku siyaadin kara Addis Ababa si ay Masar laba mid unu hesho in ay Itoobiya ka noqoto qodobada heshiiska ay ka baxday markii ay biyo xireenka Abaay bilowday ama in South Sudan noqoto hoyga jamhado hubaysan oo hordhac ay u tahay waqtigan TPLF taasoo dagaalka ka wadi doonta dalka Itoobiya si awoodda ciidan iyo tan dhaqaale ee Addis Ababa hoos ugu dhacdo kadibna Addis Ababa lagu khasbo inay Masar la xaajooto si dagaalka TPLF loo joojiyo damaca masaaridu ma aha mid sahlan oo si fudud ku dhammaan kara waana halis weyn oo saameyn ku yeelan doonta gebi ahaanba qaaradda Afrika waxaana saameynta colaadaha cusub ee la hurinayaa ay dib u saameyn weyn ugu yeelan doonaan wadamada gobolka qaarkood waa laba qorshe oo haddii ay u hirgalaan Cabdifataax Siisi iyo booqashadiisii ugu dambeysay ee Suudaanta Koonfureed ka dhigi karta guul siyaasi ah oo ula soo hoyday shacabka aan taageerada u haynin ee Qaahira Itoobiya oo heshay war sirdoon sida lagu faafiyay bogagga wararka ee dalkaas ayaa ogaatay in qayb ka mid ah madaxda TPLF ay booqdeen koonfurta Suudaan intii uu socday dagaalka ama inay hadda wali ku sugan yihiin magaalada Juba inkastoo aan laga sugaynin TPLF rumaynta warkan haddana way beeniyeen TPLF xilligan kuma dhacdo inay qirito inay dariska u raadsatay gargaar iyo maciin iyo garab gaashaan u noqda sababtuna waa iyaga awowgood afawarka u arka cadow weyn oo Abiy garab u noqday waxay xoogga saarayaan sida ay isaga jeedin lahaayeen wax kasta oo ku salaysan in lala xiriiriyo in dibadda laga riixayo halgankooda Ethiopia xogtaas iyo ajandaha booqashada Siisi marka ay heshay waxay qaaday tallaabooyin ay ku muujinayso caradeeda siyaasadeed kow Addis Ababa waxay dalkeeda ka saartay diblomaasiyiinta South Sudan ee dalkaasi ku sugnaa waraaqaha dalka baxa waxaa loogu sii dhiibay askar taas oo muujinaysa inay Addis Ababa u dirtay South Sudan fariin colaadeed inkastoo warkan ay diidan tahay xukuumadda Abiy Ahmed haddana warbaahinta Juba way xaqiijisay ila diblomaasiyadeed oo reer galbeedkayna way taageereen labo Abiy Ahmedka Addis Ababa waxa uu shalay sheegay in kuwii dhibta ka geystay gobolka ay ahaayeen TPLF si gaara wuxuu u xusay koonfurta Suudaan wuxuuna dareensiiyey inaysan soo dhawaysan kuwii kala qaybiyay ee dalkooda labada ka dhigay qodobka saddexaad Ethiopia waxay dhambaal siyaasadeed la wadaagtay IGAD iyo Midowga Afrika iyadoo kaga warbixisay habdhaqanka siyaasadeed ee koonfurta Suudaan shir goboleedka IGAD ee soo wajahana waa caqabad cusub oo harayn doonta kana imaanaysa xagga Eritrea oo garab iyo awoodaay xilligan